maayirka magaalada Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa xafiiska looga armiyay degmada saaka ku qaabilay dhakhaatiir ka socda dalka Mareykanka kana soo jeeda Somaliland waxaana maayirka iyo dhakhaatiirtu halkaas ay ku yeesheen kulan isxog wareysi intaasi kadibna waxay ku ixtimeen isbitaalka guud ee magaalada Gabiley ee caasimada gobolka dhakhaatiirtina ay u sideen dawooyin casri iyo sidoo kale qalab kala duwan oo ay ugu talagaleen in loogu adeego bulshada qeybadeeda kala duwan ee gobolka Gabiley waxaana dhakhaatiirtaas hogaaminayay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ah gudoomiyaha ururka samafalka ee Somaliland American Health Association ee loo soo gaabiyo saha ahna barasare wax ka dhiga jaamacadda Minnesota iyo sidoo kale Dr. Xuseen Cali Hanfi oo ah dhakhtar ku takhasusay dhinaca suuxdinta isla markaasina ah barajaamad iyo sidoo kale Dr. Faadma Xaashi Liibaan oo ku takhasustay cudurrada haweenka waxaana wafdigani waday aqoonyahan Mustafa Aadan Mooto ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadda Hargeysa ujeedka dhakhaatiirtan ayaa ahaa keenista qalab iyo dawooyin caafimaad isbitaalada magaalooyinka Hargeysa Gabiley iyo Arabsiyo sidoo kalena tababar muddo 2 cisho u qaban doona taalada 6 gobol ee dalka Somaliland jaamacadaha waaweyn ee dalka Somaliland waxaana tababarkaasi ka bilaabmi doona hotel Grand Hadi caasimada Hargeysa waxaana halkaasi goobjoog ka ahaa isuduwaha caafimaadka gobolka Dr. Naciime agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Gabiley iyo madaxa maamulka iyo maaliyadda isbitaalka Khadar Janaale iyo sidoo kale agaasimaha isbitaalka Wajaale sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa intay joogeen gudaha magaalada waxay kulan la qaateen agaasimaha isbitaalka dhimirka ee magaalada Gabiley ee caasimada gobolka uga warramay isbitaalkaasi iyo adeegyada uu bixiyo ugu halkaas ka hadlay qoyaan Mustafa Aadan Mooto iyo sidoo Cabdiraxmaan iyo Dr. Xuseen waxaana ay yiraahdeen ka yimid Mareykanka oo ay hogaaminayaan Dr. Cabdiraxmaan Madar iyo Dr. Xuseen Hanfi waa laba muwaadin oo dhakhaatiir waaweyn ah jaamacadaha Mareykanka wax ka dhiga kulli iyaga inoo sharaxi doona waxay noo sideen daawooyin iyo tababaro ku saabsan dhinaca caafimaadka marka waxaan toos u wareejin doonaa Dr. Xuseen Hanfi sheegay waxa weey waxoogaa dawooyin iyo qalab isugu jira ayaan isbitaalka u keenay kulli maahana markii ugu horeysay waxay noqonaysaa markii afraad oo markastoo imanayo isbitaalka Gabiley waa isbitaal aan jecelahay meel weyn iga yaala aan ku soo talagalo markasta inaan wax u keeno marka alaabtan yar waxay isugu jirtaa qalabka monitoringka mashiinka halka aad arkaysaan waa mashiinka loo isticmaalo vital signs-ka qofka xaaladiisu khatar tahay ama marka tiyaatarka qof la qalaya loo isticmaali karaa taayada ku xigtaanayna waa pulse oximeter oo iyana qofka oxygen-tiisa iyo heart rate-kiisa waxa soo dhan lagu sameyn karo daawooyinka aan keenay marka waxay isugu jiraan daawooyinka dhiigkarka oo dhowr nooc ah daawooyinka sonkorta iyaguna 2 nooc isugu jira iyo daawooyin kale oo fara badan oo antibiotics ay ku jiraan waxa kaliya aan codsanay waxa qolooyinkii soo siiyay aan ka soo bariyay waxay igu soo baleeyeen inaan dawooyinka marna la iibin oo dadka u baahan bilaash lagu siiyo shuruudda kaliya ku xiran taaway sababta ugu muhiimsan oo nimo waa inaan Xuseen u support karin Dr. Hanfi oo runtii hawl weyn ka galay inuu ka soo ururiyo dawooyin fara badan oo dhib badan iyo waqti badan runtii kaga lumay oo dadku aad uma dareemaan markuu bogasku halka yimaado laakiin runtii hawl badan buu u galay marka aad buu ilaa akhira ka siiyay mahadsan Xuseen kana imika barashadka yare ah seminar aynu ku barayno sidii loo isticmaali lahaa up to date ka oo ah tool oo qofku computerka ugu jiraya telefoonkiisana ku qaadanayo oo ah resource uu ka ogaanayo wixii macluumaad ah ee caafimaad ku saabsan u baahdo waxaanu markaa la geyn doonaa jaamacadaha public ah ayaanu ku bilaabeynaa iyo isbitaalada public ah oo ay ka mid yihiin isbitaalka Gabiley ka Hargeysa ka Burco Cergaabo 6 gobolba ayaanu ku bilaabenay jaamacadahooda marka wuxuu noqon doonaa project socda ilaa 5 sanadood oo ah maxaa qof walo inaga mid yahay haduu inta in leeg soo ururiyo daweynu waxaan u maleynayaa way inagu filnaan lahayd umaynaan baahaneen wax badan dhakhtarada aan ku faano mar walba wax fiican ba sameeyay wax fiican ba haysataa haddana maxay naga maqan dibta jirtaa maxay tahay waxay naga maqan waxa weeyaan skill yani waxaan dad wax yaqaan geed hoostii wax weyn ku daweyn karnaa laakiin waa inaynu helaa dad badan wax yaqaan maadaama imika aynu helay wax fara badan dhakhaatiir fara badan waxaynu u baahanay tayadooda sidii loo hagaajin lahaa tayada kuma xidhno kaliyata dawladda kuma xidhna tayadu waxay ku xirantahay inuu dhakhtarku isaga laftigiisu tayadiisa uu hagaajiyo halkaas ka isuduwaha caafimaadka Dr. Askar iyo sidoo kale agaasimaha isbitaalkaasi Dr. Naciime oo ka mahadnaqay qalabkan iyo dawooyinkan la soo gaarsiiyay
runtii horta waxa farxad weyna maanta noo ah inaanu helno dawooyin donation ka badana waanu ka yara cagajinay marka donation la yiraahdo badana waxa lagu keenayaa qaar dheedkoogu xoog u dhow yahay waxa lagu keenayaa qaar aan quality-googa aan la ogeyn laakiin maanta mar haddii aad dhakhaatiirtayadii ay noo keeneen dawooyin ay quality-googa available baan wadankeennii ka hayn horta waa wax lagu farxo saan sheegnayba horta hospitaalku waa hospitaal public oo governmental dadka ugu badan aan u adeegnana wax weeyaan dadka danyarta iyo dadka miyiga rural area ku nool dadkaasina waxaan ognahay inaanay maanta frosamidayna hortaala qiimaheega qaarkood inaanay iibsan karin marka anaga laftarkayaga culays baad naga qaadinaan iibina hadalkeega daayay anaga farxad noo tahay qalabkan monitoringka iyo pulse oxygas uu kamid yahayna qayb aan nimanka intusi doono emergency-ga waxaan ka dhex sameynay minor OR si minor OR ugu dhex noqday emergency-ga dhexdiisa marka imka monitoringkan iyo pulse oxygan iyo waxay noqonaysaa meesha ugu horeysan ku qalabaynayno waxaan maanta aad uga mahad celinaa dhakhaatiirta Dr. Xuseen Hanfi iyo ururka Saha Somaliland American Association-ka Medical Association-ka oo hawshan xoog iska saaray xilka oo aad loogu baahnaa uu ka mid yahay oo qofka emergency-ga lagu xirayo monitorka vital signs-ka monitor gareynaya iyo pulse oximeter-ka iyo dhammaan dawooyinka macaanka iyo dhiikarka marka dawada tayada leh la hubo gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Gabley Mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo dhakhaatiirtan uga mahadnaqay qalabkan iyo tababarkan ay bixinayaan ee guud ahaanba ka qabanayaan Somaliland aqoonyahan Mustafa oo isaguna runtii fudaydinta hawshan iyo abaabulkeedaba lahaa ugu horeyn waxaan aad iyo aad idinka mahad celinaynaa doctor booqashadiina idinkoo meel dheer ka yimi aad noogu timaadeen isla markaana deeqsida waa markii labaad in aanu goobjoog u ahaa Dr. Xuseen Hanfi oo alaabu isagu iskii soo diyaariyo halka ka soo abaabulay Mareykanka oo isbitaalka Gabley keeno runtii waxay tahay tusaale aad iyo aad u qiimo badan doctor waanu kaaga mahad celinaynaa waxay u tahay dadka reer Somaliland iyo dadweynaha reer Gabley runtii wax weyn bay u tahay waa street runtii qiimo badan oo dadka badankooda aanay ku fikirin ururka ayaa isagana jecelahay inaad ku hambaliyeeyo waa fikir aad iyo aad u qiimo badan ururka Saha programka aad wadaan iyo taageerada guud ahaan dalka aad ka wadaan oo idinka mahad celinaynaa waliba si gaar ah programka up to date-ka ee aad sameyseen waxa weeye waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay waayo aqoontii maalinba maanta ka dambaysa way isbedelaysaa gabagabadina wafdigan dhakhaatiirta iyo maayirka ayaa booqasho ku tagay xarunta maktabadda qaranka ee magaalada Gabley ee caasimadda gobolka oo ah maktabad casri ah oo si heer caalami ah loo qalabeeyay waxaana mas'uuliyiintan ay la dhaceen maktabaddan iyo qaabka loo hirgeliyay way la xaajiyay telefishinka qaranka Gabley.